kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan YouTube-keena Himilada Nolosha. Toddobaadkan waxaan idin soo gudbinayaa mowduuc aad u xiiso badan oo runtiina dadkeena aad u khuseeya. Mowduucan waxa magaciisa loo yaqaanaa dhaqamada liita. Waxaa jira dhaqamo liita oo aad iyo aad u liita oo bulshadeena runtii aad iyo aad looga yaqaano. Dadkoo dhan maaha waa shakhsiyaad gaara, waa dhaqamo ay ku sifoobaan shakhsiyaad gaara oo isu haysta inay saxsan yihiin ama og khaladkooda laakiin si ula kaca u sameeya. Shakhsiyadda koowaad waxa weeyaan shakhsiyad ku jirta dadka oo astaanteedu ay tahay goobaha laga cunteeyo. Qofkaas markuu joogo goobaha laga cunteeyo, markuu joogo ama goobaha adeega loogu qabanayo, inanka waiterka ee shaaha u keenaya ama cuntada u keenaya u hanjaba ama cuntada intuu dhadhamiyo iska riixa ama u daya inuu dhaleeceeyo meeshan in cuntadeedu tayadeedu fiicnayn ama inanka maaragtay u hanjabo inaanu si fiican uga adeegin. Qofka shaqaalaha halkii uu u naxariisan lahaa ee uu wax u sheegi lahaa ee wuxuu doonayo hoos ugu sheegi lahaa, dadka ku dhex fadeexadeeya ee shaaha iga celi yidhaahda ama iga celi cuntada waxaan dooni maayo isagoo kibirsan oo kibir ka muuqdo. oo waxa jira dadka caynkaasi badanaa waa dad aan naftooda ku kalsoonayn oo jecel in la arko ama la yidhaahdo hebel wax weeyaan sida boos buu dhaqma ama hebel waa nin khatara ama wax weeyaan waxyaabo hadalladee uu dadka ka doonaya faala inay ka bixiyaan. Shakhsiyadda caynkaasi waa shakhsiyadda koowaad. Shakhsiyadda labaad ee soo qaadanaya waxa weeyaan waxa jira dad khaladka oo kaliya raadiya, dad khalad raadis loo yaqaano oo hadafkooda uu yahay inay qofka dhaliishiisun ay soo saaraan. Weliba goobaha shaqada dadka maamulka ay astaantan u badan tahay. Waxaa jira dad maamulada ka mid ah oo jecel in qofka khaladkiisa uu eego si uu qofka ugu hanjabo ama uu ugu handado, halka wanaagiisa iyo horumarka uu samaynayo iyo dadaalka iyo qada uu geliyo waqtiga uu gelinayo aan marnaba uga mahad celin ama aan dareensiin inuu qofkaasi yahay qof meesha u qalma kuna wanaagsan waajibkiisana kasoo baxaya. Hadii jeer shakhsiyadda caynkaasoo kala waxa ay daydayaan dhaliilaha qofkaas khaladaadka uu sameeyey maalin uu habsaamay. Dadka caynkaas runtii waa dad iyaguna aad u liita oo u baahan goobaha ay joogaan in laga fogaado oo aan u qalmin in lala shaqeeyo. Waxaa jira shakhsiyad kale oo aad u liidata oo bulshadeena aad ku dhex aragtay adigu ama markaad baadhaad u fiirsanayso. Waxaa jira dad marka aad isbarataan si fiican kuu soo dhaweynaya, ku salaamaya, si kalgacal leh, naxariis leh kuu soo dhaweynaya. Laakiin maxaa dhacaya maalinta xigta uu kaa hor imanaya, uu ku dhaafaya, uu ka aamusaya. Qofkii shalay sida fiican kuu soo dhaweeyay isbarateen isagu iskaa bari welibana hadalka inta ugu badan qaatay ee aad ixtiraamka ku soo dhaweysay ayaa wuxuu samaynayaa uu ku dhaafayaa. qofkaas marka waxaad arkaysaa qofkan in ay cilada jirto. Qofkan marka horena dadka si fiican u salaamaya ee soo dhaweyn, marka dambana dadkii hiifaya ama dadkii sanifaada leh. Waa cilad runtii jirta oo psychological marka dad caynkaasna way jiraan. Dhaqamada caynkaasna waa dhaqamo runtii aad u liita. Waxaa jira dad kale oo iyaguna shaqadoodu aad moodo inay tahay inay dadka caayaan ama markasta oo ay cid la sheekaysanayaan ay cid caayaan, dad ku maqan oo hebel waa caynkan, waa mashaqayste, hebel waxa weeyaan waxa dhaliisha dhibtaasu leeyahay. waxay 24 saacad waxay ka sheekayaan dadka kale. Waa shakhsiyad ku jirta dadka qaarkood wuxuu jecel yahay dhaliilaha dad kale inuu ogaado deeta uu dadka uga sii sheekeeyo oo si uu caweyskiisa ugu wanaajiyo. aad iyo aadna waan idin salaamayaa. barnaamijkeena caawa intaas ugu joogaa kulan dambe oo xiiso leh.